ismaamulka Diridhaba ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay waftigii ka socday deegaanka Soomaalida uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan Faarax. waftiga ayaa dhawaan ka gudoomay hay'adda UNESCO aqoonsiga xeer Ciise. garoonka diyaaradaha ismaamulka Diridhaba waxaa si heer ah ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ismaamulka Diridhaba oo ugu horeeya duqa ismaamulka Mudane Khadir Jawhar. sidoo kale waxaa soo dhaweynta ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda deegaanka, odayaasha iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. intaa kadib munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday aqalka ugaaska beesha Ciise ee ismaamulka Diridhaba, halkaas oo shahaadada aqoonsiga ee xeerka Ciise ee lagu ansixiyay shirkii 19aad ee UNESCO si rasmi ah loogu wareejiyay ugaas Mustafa Maxamed Ibraahim ugaaska beesha Ciise. munaasabadaas oo ka soo qayb galeen guddiga ka qayb galay shirkii UNESCO oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan Faarax. mas'uuliyiinta ismaamulka Diridhaba, culamaa u diin, odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan Faarax ayaa sheegay in xeerkan oo laga soo gaaray fac ka fac uu ahmiyad weyn ugu fadhiyo guud ahaan bulshada Soomaalida. salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa farxad weyn ii ahaan in mar labaad xaruntii uu xeerkani ka biqlay ama asaas u ahayd in aan maantana lagu soo dhaweeyo oon annaguna sidoo kale aqoonsigii aanu soo qaadnay aanu ku wareejinno xarunta ogaasyada. si guud in badan baan ka wada hadalnay xeerkan wuxuu ka dhigan yahay, taariikhduu soo maray, in la ansixiyo waddadii uu soo maray. kulleen wax badan kama wada hadlayno, qodobo aad u ballaadhan oo wax kasta oo maaragtay la isku maamuli karo ayaa ku jira. qaybo aad u ballaadhan ayuu ka kooban yahay, 6 qaybood, 160 qodobo iyo 336 sarmood. sidoo kale 444 xeer nidaameed ayuu ka kooban yahay. marka xeerka marka la yiraahdo waliba dhalinyaradu inta badan xog dhammaystiran kama haysano, laakiin waa xeer la isku maamulo ilaa ku dhawaad 600 oo sano jiray. waqti ay siyaabo kala duwan ku noolaanshaha adduunkan uu dhib ku ahaa la isku tegay, maskaxda la isgashay, sidoo kale la isla qaatay in la isku maamuli karo. marka waxaa loo baahan yahay xeerkan hadda imika la ansixiyey, waxaa la isla qaatay in xeerasha la ilaaliyo, la xafido, uu ka mid yahay. sidoo kalena mustaqbalka geeska Afrika Soomaalida ku nool in ay wax ka baran karto. marka waxaa loo baahan yahay inaan xeerkan ilaalino. waliba jiilka imika jira, dhalinyarta imika joogta, waxaa loo baahan yahay xeerkan si qoto dheer horta in la isku fahmo bal muxuu ka dhigan yahay. inta badan saan soo sheegay xog dhammaystiran kama hayno, laakiin xeerku wax alla wuxuu ka hadlaynaba yaraatay ma jirto. waad garanaysaan nidaam kala dambaynu ayuu leeyahay, qaab dhismeed buu leeyahay, xeerarku ay kala duwan yihiin, nidaam maxkamadeed buu leeyahay, nidaam maaragtay fulin buu leeyahay, nidaam kale oo ilaalisa xeerka ayuu leeyahay. marka in si dhammaystiran xeerka loo ilaaliyo, loo fahmo, daraasaadyo kala duwan la sameeyo, mustaqbalka maaragtay haddii la karayo waliba geeska Afrika dadkan ku nooli inay wax badan kaga daydaan ayaa loo baahan yahay. annagu ka maamul ahaan iyo waliba ka deegaan ahaan waxaan isku dayaynaa in jaamacadaha ka jira deegaanka curriculumka ama manhajka uu qayb ka noqon doono hadduu Ilaahay yidhaahdo. sidoo kale siyaabo kala duwan in loo ilaaliyo ka mid noqon doona in library-yaasha ka jira deegaanka ama jaamacadahaba in xeerka wuxuu ka dhigan yahay
meesha lagu xuso oo xagga la dhigo oo haddii loo baahan yahay daraasaad dheeriya laftigiisu in qaabka daraasaadka xagga lagu sameeyo waxyaabaha maaragtay ugu muhiimsan ayay noqon doontaa waxyaabo kale oo xiga kulleynba way jiri doonaan oo heer deegaan ahaan in xeerkan sida hadda maanta xaggana loogu soo dhaweeyey sidoo kale dad badan oo codsanaya ayaa jira in xeerka si maaragtay sharaf leh loo soo dhaweeyo odayaal dhaqameedku wax badan iska weydiiyaan ay mustaqbalka waxyaabaha astaamaha in lagu xuso ama in lagu xasuusto u baahan inaan arrimahana sidoo kale laga qabto kulleen waxyaabaha qorshaha inoogu jiray ka mid tahay xeerkan geeska Afrika dadka ku nool ayuu ka dhaxeeya waxa mudnaanta loo siiyey ee aqoonsiga si degdeg ah loo siiyey waxa ka mid ahaa dad badan oo geeska ku nool ayuu ka dhaxeeya dadka waa isla qaatay marka xeer maanta ciise kaliya maaha waa xeer Soomaaliyeed waa xeer dadka geeska Afrika ku nool ay isla qaateen weey marka xeerka waxa loo baahan yahay si guud inaan wada ilaashano inaan ku dhaqanno xeerar kale oo Soomaaliyeed leedahay way jiraan laakiin wuxuu kaga duwan yahay xeerkani wax kale ma waa la ilaashaday waa lagu dhaqmay oo sidoo kale uu dhaqan galay waxa kaliya uu kaga duwan yahay waxa weeye waa xeer min bilow ilaa dhammaystiran mar kastana xaaladda dhabta ee ka jirta adduunka isagoo ka duulaya isbedelo maaragtay ama dhagalay cusub oo maaragtay waqti xaadirka ka turjumaysa lagu soo darayo marka waxyaabaha ay runahan in mustaqbalka la sii ilaaliyo waa laga maarmaan anu aad baan ugu faraxsanahay kulleen xaflado kale oo kala duwan oo hadday Dirdhaba tahay hadday deegaanka Soomaalida tahay iyo hadday Djibouti tahay baa lagu qabanayo way jiraan in la sii xoojiyo waliba xeerkan midnimada isjacaylka kalgacaylka iyo wada noolaanshaha wax badan buu ka tari doonaa marka inaan taas sii xoojino magaalada Dirdhaba oo garanaysaan waa magaalo nabadeed waa magaalo maaragtay qoomiyado kala duwan diimo kala duwan ku nool yihiin oo dadku ay isjecel yihiin weey marka taa laftigeedu wax badan buu ka tarayaa xeerku saadarteed inaan sii xoojino oo sii ilaashano oo maaragtay astaamaha xasuusaha la sameeyo laftigeedu wax badan kaalinteena ka qaadano ayaa loo baahan yahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ugaas Mustafa Maxamed Ibraahim ugaaska beesha Ciise ayaa sheegay in wareejinta shahaadadan ay calaamad u tahay aqoonsiga caalamiga ee xeer Ciise oo ah hanaan dhaqameedka muhiimka ah ee beesha Ciise kullay maanta waxaan gudoonay waa guul weyn oo noo soo hoyatay oo Soomaaliya oo dhan u soo hoyatay iyaan maanta gudoomay sharaf weyn ay tahay ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda geeska Afrika meel walba joogtay waxaan ilaahay hambalyo xeerkan sida laga sheegay ama inta badan waa xeer aabayaashay 600 sano ka hor ay garteen inaan isku maamulno oo midnimadeena ku ilaalino oo wax ku wada qabsanno dadka dariskeena sidaas leeg aan iyaga si nabadgelyo aan kula noolaano iyaga waqtiga ay ka fikreen noo dhigeen iyaga waan u duceynaynaa Ilaahay inta naxariistan Allah siiyo intii ku xigtay ee soo xafiday ee soo gaarsan iyaga Ilaahay naxariisto intii imika isku ogeysay ayaguna soo duwaan galiyay ay ugu horeeyaan ayaan iyo Abdirasaaq iyo Cali niguna aad baad u mahadsantiin taariikhda insha Allah xusi doonto insha Allah marka waxaan ilaahay jiilkeena maanta waa inaan ku faraadayno dhaqankeena iyo xeerkeena oo baranno iyaan ugu dardaaraya insha Allah meel walba joogtiin ba hambalyo insha Allah